kusoo dhawaada qisadii libaaxii dadqaadka ahaa ama dadcunka ahaa ee Sulmaroor la magac baxay. Waxaa jirtay baa la yiri libaax dadqaad ah oo dadka Soomaaliyeed aad u dhibay oo dadka cuni jiray gobolka Gado ilaa NFD caanka ahaa baa jiray. Waxaa jirtay gabar ka carootay ninkeedii oo ilmo yar la tagtay oo la carartay ayadoo rabto inay aad reerkoodii waxay ku soo hagaagtay baa la yiri halkii libaaxa uu dadka ku cuni jiray ayadoo oo xilli roob da'ayo oo hilaac habeenkii beligta ama hilaaca uu muuqdo meel fog ka muuqdo haraadna u dhimanayso ayay ku soo hagaagtay baa la yiri geed uu libaaxa ku cuni jiray dadka. geedkaas waxaa la yiri hal irid buu qabaa wadada geeskeeda ayuu ku yaalaa waxaana geedkaas uu leeyahay shiir jinni ama suur nooc kale ah suurta oo ah dadkii uu ku cunayay. marka waxaa la yiri waxaa is ogeyn oo markaa asagana meesha ku soo hagaagay habeenka ayaga ee gabadhan ku hagaagi doonta libaaxa reer ayagana abaara iyo wax ka soo cararayay oo meel cidlo ku soo hagaagay ayaa soo degay meeshii libaaxa uu dadka ku cunayay. marka waxaa la yiri nin ka reerka lahaa wuxuu ahaa nin aan libaax aqoon ahayn. marka waxaa la yiri xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo xogaa xayn ah iyo xogaa hala ah ay wax buu watay wuxuu marka soo degay meeshii libaaxa dadka ku cunayay asna. gabadhan hooyadan socotada ahayd ee ayadana ninkeedii ka soo carootay ee cararaysay waxay la soo kulantay dhibaatooyin badan gaajo iyo haraad. waxay gashay baa la yiri geedkii uu libaaxa dadka ku cuni jiray ayadoo markaa aanan garanaynin inuu geedkii yahay in kale aan akhbaar u haynin ama war aan u haynin libaaxan. waxay taabatay baa la yiri roob baa da'aya waa mugdi isha haddii farta laga gelinayo waxba ma arkaysid. marka roobka ka gal unbay istira geedkii bay gashay baa la yiri geedkii markay gashay ayay istiribal waxan hoostaada ee qalalab leh ee shanqaraaya balse u taa waa lafihii dadkii timihii gacmihii dadkii iyo maxaa la dhihi jiray weelashii micnaha ameelkii nin reer miyi oo ameel wato soo qaaday libaaxu marka meeshuu ku cunay ameelkii baa meesha yaalaa islaan socota ah oo jeeg hirib wadato jeegiiba ama kaloorkii ayaa meesha yaalaa oday socota ah oo uu cunay jalamadkii ayaa geedka yaalaa. wixii bay saa u tataabatay way garatay marka inuu geedkii libaaxa dadka ku cuni jiray ee laga sheekeyn jiray inuu yahay way garatay baa la yiri. marka waxaa jirtay reerkii odaygan marka reerkiisa soo guuray meesha soo degay libaaxi baa aaday. libaaxa marka hadduu dad helayo xoolaba ma raba marka ninkii buu soo qaaday baa la yiri islaantii iyo caruurtii oo qayliyaya ayuu meesha kaga soo tegay. markuu libaax intuu ninkii soo jiitay la soo galay geedkii dabadaba uu u soo galay ninkiina dhulka u dhigay ninka marka wax dhintuu iska dhigayaaye weli muunan dhiman baa la yiri. marka cunugii baa shanqaray libaaxi marka dhagtuu yar taagay waxay afka u gelisay naaska si uu micnaha libaaxa canuga maxaa la dhihi jiray uu dareemin macnaha ma dareemi kara shirka maadaama meeshii dadka maqaarkiisii hilibkii iyo lafihii iyo wixii yaalaan qof bini'aadam uu soo qaadan hoos yaalla waxba muunan shiirin libaaxi. marka waxaa la yiri cunugii bay naaska afka u gelisay ninkii nafta kama bixin oo weli muunan dhiman.